السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada khiyaarta ku xiran kanaalka Edukson. Waa casharkeen imtixaanaha inoo socday ku saabsanaa Java SE11, beshii ugu dambeeyay Java SE11. Runtii aan ugu talagalnay inaan wadno casharadeennii ku saabsanaa in aan micnaha aan si taxanaa u wadno si qofku uu si fiican uu isaga dhiso asaaska Java, kadibna ugu fududaato inuu noqdo certified Oracle Java developer insha Allah. Soo dhowaada Java runtime. Maanta waxaan ka hadli doonaa qodobada maanta aan ka hadli doono waxa weeyaan haddaan dib u laabto. Maanta waxaan ka hadli doonaa inaan kala fahno waxa la yidhahdo JDK, JRE iyo JVM. macnaheeda sababta aan ugu dul wareegayo qodobadan oo hadda cashirka ugu dambeeyana uga hadla qayb ka mid ah waxa weeyaan qofku marka uu fahmo sida saxda ah ay asaaska luqaddu u dhisan tahay hoosteeda, inuu on the top of the luqadda inuu wax ku dirdiso way u fududaanaysaa. waa iska garaaci karnaa code oo sidii marka hore basaan bilownay waa aan tusay. sababta xoogaa hadda u qaboojiyey waxaan rabaa inaad fahantaan hoosaaska hore si aan marka qaybta hoose fahantaan aan ka socno. Okay, waxaan ka bilaabaynaa JDK oo ka kooban oo ah Java Development Kit, JRE oo ah Java Runtime Environment, iyo JVM oo Java Virtual Machine. marka mid walba wuxuu qabto ayaan ka hadli doonaa. haddii aanad gees u gudbo, Java Development Kit oo loo yaqaano JDK waa maantii waa muhiim inaad fahantid waxa uu yahay. waxaa loo soo gaabiyaa Java SDK. marka aad la soo degayso ama aad soo qaadanayso way dhacdaa inay Java SDK ku qoran tahay, laakiin waa Java Development Kit. marka Java SDK wax kale ma asaga waxa waaye waa Java SDK waa library dhan oo ay ku jiraan intaas oo macluumaad ah. waxaan loogu talagalay qofka, waana ka garan kartaa magaca Java Development Kit. qofka wax dhisaya ee programming samaynaya toolska u baahnaa oo dhan ayaa ku jira. marka qof walba oo developer marka ugu horeysa markuu rabo inuu wax dhiso waa inuu la soo degaa waxa la yiraahdo Java Development Kit. marka waa in tusi doona asaga qaabka loo soo dego marba arki doontaan. markaad wax dhisayso programming aad bilaabayso oo aad rabto inaad code ka qorto, haddii uusan Java Development Kit aad haysanin ma ku shaqeynayo, waa khasab. contains compiler waxaa loola jeedaa macnaha compilerkii macnaha markaad programming aad qorto oo aad tiraahdo aad rabto inaad run garayso si aad u aragto waxaad samaysay resultigeedii, compilerka ayaa moogtahay la wareega oo turjumahaas. marka asaga compilerka laftigiisa wuxuu ku dhex jiraa markaa la soo degaysa Java Development Kit ku dhex jiraa, ama library loo Java SDK kaasuu ku dhex jiraa. halkaas marka waxaa ku dhex jira xataa compilerka turjumihii koodkaaga turjumaya. not necessary to run Java programs. waxaa loola jeedaa khasab ma aha macnaha inaad haysato Java JRE oo runtime environment kan macnaha rangareeya programka khasab ma aha. asaga markii aad compile dhahdo wuxuu wataa runtime wuu wataa oo macnaha asaga rangareyn kara keligiis. laakiin programka caadiga markii aad dhamaystirto aad tiraahdo programkan waa shibgareynaya ama barnaamijkan waa la isticmaalaya, markaas asaga ma ku rangareyn karo. marka waxa weeye Java runtime environment-ga ayaan u gudbi doonaa. marka qofka waxaa ku filan kaliya SDK library-ga hadduu haysto, compiler-kiina ugu jiraa wuuna rangareyn karaa barnaamijka asaga uu qoray. laakiin sida uu ugu rangareyn karo waa inuu barnaamijkiisa test gareeyo kaliya inuu shaqeynaya in kale uu ku rangareyn karaa. marka sababtan ku leeyahay comes with runtime. marka runtime uu haystaa isagaa wata runtime uu rangareynaya markii uu dhaho qofku run barnaamijka uu qoray. kaba soo qaad waxaad qortay tusaale ahaan waxaad tiri hey barnaamijkayga waa dhamaystiray, waxaad tiri intaan kan soo akhri kan isku dar kan ka jar kadibna intaa banaanka soo saar. kadib waxaad tiri haye okay i rangare batoonkaa taabatay. markuu rangareeyo ayaa waxa weeyaan asaga markaasuu compilerka gelaya haddiise wax error ku jira koodkaaga, kadibna waxaa rangareynaya the runtime-ka. marka wuu wataa SDK-ga ayaa wataa asaga laftigiisa runtime wataa ku rangareynaya. marka Java Development Kit-ka waa toolka marka aad programming samaynayso aad code qoraysid aad u baahan tahay. okay, good.
Java runtime environment marka hadda waxaan ku magaysa waxaa loo soo gaabiyaa Java RE. Java runtime environment-ku waa haddii la dhaho waa macnaha khasab bay kugu tahay in Java runtime environment-ga aad haysato si uu barnaamijkaaga markii aad dhammaystirto oo la rabo application-kaaga in la rangareeyo oo la rabo in la socodsiiyo wixii marka socodsiin lahaa oo barnaamijkaaga intuu qabto bytecode-kii u bedeli bytecode-ka soo qabanaya kadibna rangareynaya weeyaan Java runtime environment-ga. Okay, Java runtime environment runs bytecode on machine it is on. waxaan u jeedaa macnaha wuxuu sameynayaa barnaamijkaagii adiga aad programkaaga aad soo samaysay Java runtime environment-ga mas-uuliyaddiisu waxay tahay in uu bytecode-kaas loo soo bedelay inuu rangareeyo kuna rangareeyo mashiinka markaas uu joogo. mashiinka waxaa loola jeedaa marka haddii uu Windows yahay Windowska gudihiisa in barnaamijka uu ku rangareeyo. haddii aad joogto Linux inuu Linux ku rangareeyo. haddii aad joogto an OS machine oo sida Mac oo kale inuu asagana ku rangareeyo. marka Java runtime environment-ku marka waxa asaga ayaa bytecode-kaas rangareynaya. Okay, marka lagu leeyahay it's a language agnostic waxaa loola jeedaa asaga macnaha muhiim ma aha luqadda lagu soo qoray koodhka. haddii aad ku soo qortay xataa waxaan Java ahayn laakiinse loo soo turjumay bytes wuu akhrin karaa asaga. luqad kasta ha lagu soo sameeyo laakiin marba hadduu byte code la siiyo asaga byte code-kaas buu rangareyn karaa mashiinka marka uu joogo ku rangareyn karaa. Java runtime environment marka saas waxaa loo dhahay it's a language agnostic asaga luqad shaqadiisa ma aha. mar haddii bytecode laga soo dhigay bytecode-ka ku filan asaga. Okay, waxaan u gudbaynaa marka Java virtual machine ama dib aan u laabano waxaan meel hal qodob aan ka tegey. qodobkan ka tegey marka waxa weeye waa Java runtime environment kan waa idin sheeg soma kanaan ka tegey. asaga laftigiisa Java runtime environment-ku waxaa ku dhex jira JVM-ka waana waxa keenaya in uu mashiinku uu rangareeyo macnaha in bytecode-kan cidda macnaha rangareynaysa waa JVM-ka wuxuu ku sii dhex jira Java runtime environment virtual machine. sababta virtual machine-kaas waa virtual machine-ka waxaa loola jeedaa waa mashiinkii bytecode-kan markii runtime-ka uu turjumo mashiinka macnaha waa virtual machine haddaan maqasho macnaha waa adiga computerkaaga aad haysato qayb ka mid ah ayuu qabsanayaa halkaasoo marka ka dhex kicinaya. marka virtual machine virtual marka lagu leeyahay dee waa machine aan la taaban karin laakiin meesha ku dhex jira waa asaga. marka halkaa waxaa la rabaa inaan u fahanno Java runtime environment-ga ayaa wata JVM-ka. JVM-kuna waa midka kicinaya bytecode-kii rangareynaya laakiin JVM-ka slice-ka dambe u gelinaa waa kan. Java virtual machine-ka marka asaga shaqada uu qabtaa maxay tahay wuxuu rangareeyaa bytecode-ku waa lasoo markii JRE uu soo qaado oo macnaha bytecode-kii uu rangareynayo meeshu ku rangareyn lahaa ayaa waxay tahay Java virtual machine-ka. virtual machine-kaas ku rangareynaya kadib waxaa kacaya programkii aad soo samaysay qofka isticmaalaya. Okay, waxaa la yidhi marka runs on a computer any computer that is compiled to bytecode. waxaa loola jeedaa computerku doona ha noqdo virtual machine-ku uu barnaamijkaaga uu kicinaya just only waxaa muhiim ah koodhkaaga inuu bytecode markii hore macnaha uu ahaa oo laga soo compile garay bytecode macnaha programkaaga markii hore in bytecode laga soo dhigay kadibna JRE-ga ayaa ku dhex wadi kara virtual machine gudihiisa ku kicin kara uu soo kacaya markaas. as a bytecode loader iyo verifier iyo interpreter waxaa laga wadaa virtual machine-ka waxaa ku dhex dhisan wax la yihahdo bytecode loader. marka hore bytecode-ka ayaa soo load garaysmaya wuxuu ku load garaysmaya virtual machine-ka. verified waxaa loola jeedaa macnaha wuxuu verify gareynayaa security-giisa in macnaha uu yahay secure inuu yahay waxaan aad soo samaysay meel fiicanna uu ku dhex jiro ayuu hubinayaa kadibna interpreter uu turjumayaa kadibna uu barnaamijkiiba kusoo kacaya adiga. wax kale uu qaban karaa marka wuxuu kaloo qaban karaa can convert bytecode to machine code asagoona xataa laftigiisa TJRE-ga iska wada shaqeynaya intuu soo qaado bytecode-kii
load gareeyo verifying ku sameeyo interpreter ku sameeyo kadibna uu soo kiciyo asagoon sameeyo wuxuu samayn karaa tactic kale wuxuu samayn karaa byte code macnaha can convert byte code to machine code wuxuu samayn karaa asagoon is dhibin ayuuba wuxuu samayn karaa intuu byte code ka soo qaado ayuu automatically wuxuu bedeli karaa machine code waan ka soo hadalnaa amalna casharkeen hore machine code-ka the C++ iyo C markan ka aan idin sheegay waxay compiler-koodu wuxuu u bedelaa machine code-kaasna waa specific wuxuu ku shaqeeyaa machine-ka marka uu ka dhex kacayo ku xiran tahay hadduu Windows environment yahay machine code khuseeya Windows environment ka kacana Java virtual machine xoogaa waxay moodaa wax inuu ka smart garaysan yahay isaga wuxuu samayn karaa xataa byte code intuu qabto ayuu machine code u bedeli karaa markii si Windows uga dhex kaco si uusan macnaha straight away asagoo markaas aanan wadadii dheerada aan soo marin marka haday in sheegay marka labada dhinac buu qaban karaa marka conversion wuxuu ku samayn karaa from byte code to machine code ama haddii kale wuxuu samayn karaa programka macnaha byte code-ka ayuu macnaha ku run garayn karaa meesha gudihiisa kadibna soo soo kaco marka laba si uu samayn karaa inuu asaga gudihiisa as a virtual machine ahaan programka u soo kiciyo iyo inuu byte code-ka machine code u kiciyo oo kadibna machine-ka markaas laftigiisa Windows-ka inuu asaga markaas gudihiisa ka kaco saas buu ku shaqeeyaa labada dhinac buu geli karaa marka labadaba waa loo isticmaalaa marka haddaan waxa dib u laaban marka maxaan fahnay JDK waxaa muhiim in aad u fahanto inuu yahay waa toolkii aad programmada ku samayn lahayd compiler-kii buu wataa runtime buu wataa saad u run garayso GRE iyo JVM way isku dhex jiraan badanaa oo GRE-ga JVM ku wataa waa qaybta dhan ee waxa way byte code macnaha barnaamijkaagii u bedelaysa byte code-kina kadibna isku dayaysa inay run garayso saasna ay ku socon karto JVM-kana waa virtual machine-kii uu JRE-gu ku dhex waday shaqada JVM-kuna laftigiisa wuxuu samayn karaa byte code-ka isagoona wadadaas dhan marsin ayuu wuxuu u bedeli karaa machine code si uu u dhex kiciyo barnaamijkii marka uu ku dhex jiro casharkana waan intaasaan ku yaray macnaha ku joojisanaynaa JDK GRE JVM intaba waxaa laga yaabaa inaan ka hadlo marka dambe aan ka hadli doono memory-ga iyo qaabka ay u xariismaan ayaa laga yaabaa inaan wax ka soo galno gudaheeda waa mahadsantihiin oo casharkeena dambe insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu